kulanti wanaagsan daawadayaal baanti ugu weyneed ayaa laga faafiyay heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya qof kasta oo luqadda yaqaana uu akhrin kara waxa iska kaashada baahinta been abuurkaasi warbaahin mucaarada oo Turki ku taala iyo dad Soomaali ah oo ayagana mucaarada waxaan kula wadaagayaa xaqiiqda heshiiska iyo sida uu qoran yahay adigana waad akhrin kartaa waa sii baari kartaa laakiin ku soo dhawow faafahintan waxa qoray Axmed Cali Sheekh oo ah wariye caalami ah oo VOA meelo kale ka shaqeeyay qoraalka oo turjumaad la saaray iyo sida uu heshiiskan yahay faa'iido Soomaali ugu jirta qasaaraha 90% waxa la sheegay intaas baa ku xusantaa ee nala soco ilaa dhamaadka heshiiska taariikhiga ah qoraalkiisa wuxuu ku bilaabay heshiiska taariikhiga ah ee ay Soomaali iyo Turkiga kala saxiixdeen ee sahminta iyo soo saarista shidaalka iyo gaaska ayaa si weyn u soo jiitay indhaha bulshada balse sidoo kale waxa uu abuuray jahwareer iyo faafin xog qaldan oo aan sax ahayn waxa uu yiri waxa aad loo faafinayaa oo shacabka Soomaaliyeed walaaciyay in Soomaaliya shidaalkeedii bixisay ama in Turkiga oo qaadanaya 90% dakhliga shidaalka laakiin marka si dhab ah loo akhriyo heshiiska la saxiixay xaqiiqadu aad ay uga duwan tahay warka la faafiyay oo saacadii la soo dhaafay baraha bulshada ama warbaahinta Soomaalida ku aragteen maqaalkan waxa uu ku sharaxayaa waa heshiiska ay labada dal ay gaareen dhab ahaantiisa iyo sidoo uu qoran yahay isaga oo sheegay inuu ku kala saarayo beenta la faafinayo iyo qodobada xaqiiqda ah ee heshiiska ku qotoma waxa lagu bilaabay ama uu ku bilaabay wariyahan shidaalka Soomaaliya waxa leh Soomaaliya ciwaanka ugu horeeya ee heshiiska waa noocaas tani waa qodobka ugu muhiimsan ayuu yiri heshiisku si cad ayuu u qeexayaa in shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee ku jira dhulka iyo badda Soomaaliya ay yihiin hanti qaran oo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda heshiiskani wax isbedel ah kuma keenayo lahaanshaha khayraadka dalka Soomaaliya gaar ahaan gaaska dabiiciga ah iyo shidaalka oo ay Turkiga gacanta ku hayaan ama shirkado kale qandaraaskan la siin karo Turkiga ama shirkada kale lama siinin xuquuq lahaansho shidaal Turkiga waxa uu kaliya u yahay shirkad fulinaysa hawsha sahminta iyo soo saarista balse ma laha wax xuquuq ah oo ku saabsan hantida shidaalka lahaansho waxa uu wali si buuxda gacanta ugu jira dadka Soomaaliyeed oo ayaga ayaa leh go'aankoodana u madax banaan qodobka ku xiga muxuu dhab ahaan ka dhigan yahay qodobka 90% ah ee meesha ku qoran warka la faafiyay gaar ahaan kuwa ay baahisay warbaahinta leeyahay Nordic Monitor oo ay leeyihiin saxafiyiin Turkish ah oo mucaarad ku ah dawladda dalkaasi waxay si qaldan u fasireen qodobka 90% iyagoo ku andacoonaya in Turkiga uu qaadanayo 90% dakhliga shidaalka ee Soomaaliya laga helo xaqiiqadu waa tan marka 90% xaqiiqadeedu meeshan ka fiiri heshiisku waxa uu ogolaanayaa in shirkadda Turkiga ee la yiraahdo Turkish Petroleum loona soo gaabiyo TPAO ay dib ugu soo ceshato kharashaadkii ay gelisay sahminta qoodista qalabeynta iyo howlgalka wixii qarash ay ka galeen maadaama Soomaaliya aysan $1 ku bixinin lacagta galeysana aysan Soomaaliya awoodin shirkaddu waxa lagu heshiiyay inay qarashaadka soo ceshato iyadoo loo ogolaanayo inay ka qaadato ugu badnaan 90% soo saarista sanadlaha ah ee shidaalka iyo gaaska ما شاء الله maanta waxaan soo booqday beerta Dar es Salaam waa meel dalxiis ku fiican cadceedii baan halka ku haynaa biyo bay leedahay cagaarkii xayawaanaadkii baa halka ku nool fardale maxaa ku yiraahdaayay kuwa wax cuna hilibka cuna leh xataa aan cagaarka lahayn maxaa ku yiraahdaa libaax leh yaxaas leh durwaale waxyaabo badan baa halka yaala marka waa beer runtii anu 7 dal baan dalxiis ku tagay waa la socotaa in alla waxsi ahay Maalto waa tagay Dubai waa tagay Dooxa waa tagay Nairobi Istanbul halka meel loo dhigo wallahi ma arkin marka kharashaadkaasi bixintiisa la dhameeyo waxa haray ee la soo saaro waxa loo yaqaanaa faa'iidada shidaalka profit petroleum taas oo si wadaag ah ay u qeybsanayaan Soomaaliya iyo shirkadda howlgalka sameynaysa oo aysan jiri doonin in shirkadaas khayraadka ugu badan ay qaadanayso sida warbaahinta Soomaalida ay faafiyeen qaarkood waxa intaasi u sii dheer Soomaaliya waxay heli doontaa ilaa 5% oo la yiraahdo royal ama gunno ama royalty laga bilaabo maalinta ugu horeysa ee soo saarka xataa inta lagu gudo jiro kharashka soo celinta ayada wax heli doontaba
iyadoo aan weliba wax lacaga ka bixin sidaas darteed Soomaaliya waxa ay bilaabaysaa inay faa'iido ka hesho heshiiska iyadoo aysan wax khatar dhaqaale ah ama khasaare ah ama culays kala la saarin oo la xiriira sahminta iyo qodista iyadoo waxba laga jaranin ama wax dhibaato ah aysan dhaqaalaha ka soo gaarin Soomaaliya ayay faa'iidadii u bilaabanaysaa qodobka kale ee saddexaad sababta Soomaaliya u dooratay qaab dhismeedkan kharash soo celinta ah sahminta iyo qodista shidaalka gaar ahaan badda hoosteeda waa hawl aad qaali u ah oo khatarteedu aad u sareyso qodista kaliya ee hal ceel oo badda ah waxay mararka qaarkood ku kacdaa in ka badan 100 milyan oo dollarka Mareykanka ah Soomaaliya sida dalal badan oo hormaraya tusaale ahaan Uganda, Mozambique iyo Ghana ma lahan awood dhaqaale farsamo iyo qalab ay ku fuliso mashruuca sidan weyn ee sahminta ah oo lacagtaasi malaayiinta dollar ah ay ku baxayso halkii ceelba qaab dhismeedkan kharash soo celinta ah waxa uu suurtagal ka dhigayaa in dalka uu helo maalgelin caalami ah isagoo aan wax khatar dhaqaale ah gelin ama wax khatar ah uusan wadanka soo wajin balse weli sii haysta lahaansho khayraadkiisa oo aan cidi shirka ku lahayn isagana u madax bannaaya haddii ay Soomaaliya isku daydo inay kaligeed fuliso mashruuc sidan u weyn waxaa laga yaabaa in khayraadkaasi sanado badan oo hoos u jiifo oo aan wax faa'iido ah laga helin lana soo saarin meesha way marka meesha ugu muhiimsan waana been abuurka la faafiyay iyo xaqiiqada dhabta ah halkaani kugu caddahay iyadoo kooban waxaa la faafiyay warar si qaldan loo turjumay oo lagu jahwareerinayo bulshada aan si cad u kala saarin laakiin halkan ayaa hadda lagu kala saarayaa si nadiif ah Turkiga ayaa qaadanaya 90% dakhliga shidaalka Soomaaliya marka ugu horeysa waa been abuur maxaa run ah qodobka 90% waxa uu qoseeyaa oo kaliya kharashka soo celinta ee ma ahan lahaanshaha shidaalka ama faa'iidada kama dambaysta ah marka kharashaadka la bixiyo waxa haray waxa si wadaag ah u qaybsanaya Soomaaliya iyo shirkadda howlgalka sameysay xataa Turkiga ma waa shirkadda howlgalka sameysay Soomaaliya waxay siisay Turkida xuquuqda shidaalka ayadana waa been abuur oo shidaalkan waa khayraad dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo aanay Turki shaqo ku lahayn heshiisku waxa uu si cad u cadeynayaa in shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ay weligood yihiin hanti Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna ay leeyihiin been abuurna ay tahay in dalka Turkiga ama dawladda Turkiga ah la siiyay Turkiga waa howlwadeenka wax la yiraahdo operator oo kaliya mana laha xuquuq hantiyadeed iyo lahaansho shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee Soomaaliya waxay hesho oo kaliya 10% faa'iido ah ayadana waa been abuur maxaa run ah 10% waxa loola jeedaa inta harta ee soo saarka marka 90% la isticmaalo kharashka soo celinta ama kharashka soo celinta loo isticmaalo 90% balse taasi ma aha saamiga faa'iidada kama dambaysta ah ee la wadaagayo oo ay dhinacyadu xisaabsan doonaan ma aha Soomaaliya waxay helaysaa royalty waxa la yiraahdo oo gunno ah laga bilaabo maalinta koobaad iyo faa'iidada wadaaga ah marka kharash soo celinta la dhameeyo markasta ayada ayay lacagtan dheeraad u tahay oo 5% ah xataa markii faa'iidada la wadaago lacagtan kale 5% ah waa lacag kale u sii dheeraada oo Soomaaliya u soconayso Soomaaliya maxay Soomaaliya ka heshay heshiiskan marka heshiiskani waxa uu Soomaaliya siiyay gunno oo laga helo soo saarka shidaalka laga bilaabo maalinta koobaad oo faa'iidadii ka dheeraadka ah kusoo dhawow Somali Sudanese Specialist Hospital oo ku guuleystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa isbitaalka ka howlgala 125 dhakhtar oo 30 kamid ah yihiin takhasusi oo aqoon khibrad iyo takhasus u leh daweynta iyo qalliimada casriga kombiyuutarka ur ku jirta CT scan iyo MRI waxa isbitaalka kugu diyaarsan mashiinka kaliyaha lagu dhaqo iyo qalab casri ah oo lagu baaro xididada halbowlayaasha iyo wadnaha laguna furo xididada xirma isbitaalka takhasusiga ah ee Somali Sudanese wax khatar dhaqaale ah oo saaminta ku saabsan ma saarna dawladda Soomaaliya xataa haddii khasaare laga kulmo ma jirto wax lacag ah oo dawladda Soomaaliya looga baahan yahay lahaanshaha shidaalka oo si buuxda ugu jira gacanta dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda fursad lagu dhisayo aqoon farsamo iyo shaqo abuur gudaha dalka ah ayaa kamid ah faa'iidooyinka kale ee Soomaaliya heshiiskan ma aha bixinta khayraad
waa xeelad istiraatiiji ah oo lagu horumarinayo khayraadka dalka iyadoo laga fogaanayo khataraha dhaqaale ee saaminta ka imaan kara inta aan khayraadkiiba la soo saarin waxaa laga fogaanayaa wax kasta oo khatar ah oo Soomaaliya ay la kulmi kartay heshiiskan waa 5 sano oo kaliya 5 sano wixii ka dambeeyo Soomaaliya waa ka bixi kartaa haddii la rabtana way sii kordhin kartaa shirkad kalena way siin kartaa waa 5 sano soconaya 5 sano kadibna dowladda Soomaaliyeed ayaa waxay la wareegaysaa kharashkii oo faa'iido imaan doonto iyo sidoo kale qalabka iyo saaminta iyo wax kasta oo meesha la geliyay dowladda Soomaaliya ayaa toos u qaadan doonta gunaanad Soomaaliya waxay gashay heshiis xeeladeysan heshiiska sidaalka ee Soomaaliya iyo Turkiga ma ah dhaca khayraadka dalka mana ah heshiis lagu lumiyo shidaalka waa qorshe si xeeladeysan loo dejiyay si lagu horumariyo khayraadka dabiiciga ah ee dalka iyadoo lahaanshuhu oo weli gacanta ugu jiro shacabka Soomaaliyeed faa'iido la helayo xilli hore khataraha oo la iska ilaalinayo isla markaana loo gogol xaarayo mustaqbalka madax banaanida dhaqaale iyo midka horumar iyo farsamo ee Soomaalida ee shidaalka ku saabsan Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad cusub oo ay si xigmad leh ugu maareynayso khayraadkeeda si ay uga faa'iideysato shacabkeeda maanta iyo biriba iyo qoraalkiisa ku soo gabagabay Axmed Cali Sheekh oo nin saxafi ah oo warbaahinta caalamiga ka soo shaqeeyay turjumay ama akhriyay qoraalkaas oo warbaahinta Turkiga ee mucaaradka ah ay si qaldan u faafiyeen Soomaalidiina ay qaateen shacabkiina lagu jahwareeriyay aad u mahadsantiin intaas ku soo gabagabeynay qoraalkiisa intaas oo ah adina aragtidaada qaybta hoose faallada noore buuqaalkana si shargaray aad iyo aad u mahadsan